tiyo maalmihii ugu dambeeyay roobabkii guuga ay ka curteen degmo ganacsiyeedka Wajaale isla markaasina roobkii dhibcu waxyeello u geystay xaafadaha galbeedka ee degmadaasi tog Wajaale ayaa maamulka dawladda oo soo iyagu ka duulaya daadadka roobabka wata si ayna waxyeello u gaarsiinin shacabka ku dhaqan degmadaasi Wajaale ayaa saaka waxay bilaabeen moosas waaweyn oo ay kaga leexinayaan biyaha ka soo rogmanaya jufada isla markaasina xaafadaha galbeedka ee magaalada waxyeello soo gaarsiinaya waxaana howlgalkan maanta moosaska weyn lagu xidhayo ka hadlay gudoomiyaha degmada tog Wajaale Xaashim Maxamuud Cabdi kaloo aanu sameynaa insha Allah hadii la yiraahdo xilli roobaadkii baynu ku jirnaa meelo fara badan oo halkii biyaha laga xidhay area garabkeena ahayd ayaa iyadna waxa jirta meelo fara badan oo soo go'ay mooski taasina waanu bilownay oo iyadna imika waanu xidhaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay imika wuxuu noo sakhiray inaynu soo iibsano cagafteena saan meel kasta oo biyo ay naga soo marayaan ama ay nagu dhibaateynayaan baanu ku xidhaynaa dadweynahana waxaanu doonaynaa inta qashinka ay naga caawiyaan oo nin walba qashinkiisa meeshiisa ku xakameeyo imika waa xilli roobaadkii had iyo jaraale ummadeen waxay caadaysatay inay qashinka intay qaadaan halkan ka horeysay dheerida ay dhex dhigaan dheeridii iyo qashinkii baa isku marmaya kulasa biyo awgoodba aan la qaadi karin biyo qashinkii oo ku marmay dheeridii iyo qashinkii ay ku marmeen mana gubanaya qashinkii markaa lama qaadi karay ummadda waxaan u sheegaynaa inta roobku da'ay sanadka guga ama inta ka dambaysa baa noqotay nin walba qashinkiisa isagoo nadiif ah oo caadiya oo aan wax dhibaato oo gaartaayna jirin gurigiisa ku hayo aroor kastana annaga ka qaadayna laakiin ninka qashinkii iyo dheeridii iyo biyihii oo isku marmay gurigiisa hortiisa aan ugu imano waa ganax imika baa naga idin sheegayna qashin dambe oo guriyaha hortooda lagu daadiyo yaana dhicin caado xun bay ummaddu yeelatay caadada xun waxa weeyaan qaadkan laga keeno Itoobiya marka kolayada la dhigo caleenta ku moorgaraysaneen qaadka lagu soo waxeeyo ay caleenta intay qaadaan kolayga hortiisa ku daadiya adiga iyagoo oo leh qaadka cusbaan haya qoladani bacadlayaashii ku dharka iibiyana baca fara badan iyo qashin fara badan intay ka saaraan ay gurigooda hortooda ku daadiyaan ay yiraahdaan meeshii aad wax looga iibsanay waa meeshaydani sida daraadeed cid alla cid laga aqbalaya qashin gurigeeda horteeda inay ku daadisaa ma jirto dheerida iyo biyaha iyo waxa isku marmaya qashinka ama ogolaanayno aroor kasta in laga qaado qashin habeenka ugu horeysa ee aad Qadar Cabdi Telefishinka caalamiga Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Tog Wajaale